xaaladda Liverpool sanadkan waa mid aad u xun. Kulamadii ugu dambeeyay natiijo xumo ay ka keentay horyaalka Premier League ayaa la saaray xadeema su'aal ku aadan sanadkan kooxdu inay ku jirto xaalad burbur ah. Liverpool qarka ay u saaran tahay inay burburto. Maxay tahay sababta? Muxuu diiday tababare Arne Slot? Maxay dalbadeen taageerayaasha Liverpool? Muuqaalkan ku soo qaadan doona dhammaan kulamada la ciyaari doona horyaalada kala duwan maanta. Muuqaalka ku soo galay inoo saar koob linking in badan inoo taab saaxiibayaal. tababaraha Liverpool Arne Slot ayaa sheegay inuu soo dhaqaaqi doono nidaam difaac badan si uga baxo xaaladda natiijo xumada kooxda maalmahan ugu dambeeyay la kulmaysay inkastoo uu qaray in marka qaarkood qaabkaasi faa'iido ay leedahay. Slot wuxuu yiri waxaan ka soo horjeedaa aragtideeda kubadeed laakiin hore ayaan u guuleystay anigoo bedela qaabkayga. Tusaale ahaan kulankii City ee banaanka qaybtii labaad waxaan ciyaarnay si ka duwan si aan markaa ruux ciyaari jirnay. tababaraha Dutch wuxuu yiri waa la qabsan karaa xaaladaha gaar ah laakiin ma aaminsan dhibaatadu tahay inaan aad u furanahay oo fursado badan ugu helo marka laga reebo kulamada Palace iyo Brentford. inta badan kulamada kale waxaan xaq u lahayn in wax badan aan helno waan siinin fursado badan kooxaha kale. sidaa darteed ma arko sabab aan gebi ahaan u bedelo habkan oo ciyaaro laakiin dabcan waa inaan ka shaqeynaa inaan joojino goolasha sida fudud nooga dhalanaya. Liverpool waxaa laga dhaliyay 14 gool 7 kulan ugu dambeeyay waxayna ku guuldareysteen inay ilaashadaan shabaqooda 10 ciyaar oo ugu dambeysay tartamada oo dhan. kooxdii safatay toddobaadkan waxay ahayd markii ugu horeysay ay garoon wada galaan waxayna ogolaadeen 3 fursadood oo waaweyn. nasiib daro dhammaantood waa laga dhaliyay waayo waxay ahaayeen fursado waaweyn. Liverpool waxay kulanka soo aadan ee maanta la ciyaaraysa Aston Villa iyadoo cadays weyn dusha saaran yahay tababare Arne Slot. macalinka Arsenal wuxuu xaqiijiyay soo laabashada xidigaha Martin Odegaard Havertz inaga lagu magacaabo Dweke suuragal ay tahay leeyahay inay ka soo muuqdaan kulanka wajiyada Tottenham ka dhici doona 23 November. saddex ciyaaryahan ayaa dhammaantood dhaawac jilibka la tacaalayay. Odegaard wuxuu maqnaatay 4 October, Dweke 21 September, Havertz 5 bilow xilaareedka. kor kulanka weyn North London Derby Arsenal waxay ciyaar doontaa 3 kulan marti ah fasax ciyaaraha caalamiga November. markii laga weydiiyay haddii saddexda ciyaaryahan imaan karaan macalinka ayaa ku jawaabay aad ugu faraxsanahay sababtoo ah ciyaartu aad u heer sareysa. maalmo waxaan arkaa sida ugu hamuun qabaan inay kooxda ka qayb noqdaan. soo laabashadooda waxay noqon doontaa kooxdan dhiirigelin weyn kadib waqti dheer ee dhaawac kaga maqnaayeen ayuu yiri tababare Mikel Arteta oo bandhig wanaagsan ay ku jiraan hogaankana ay hayaan. dhinaca kale macalinka Chelsea ayaa la hadlay saxaafadda kahor kulanka derbiga Chelsea la ciyaaraysa Tottenham. waxaa laga weydiiyay xaaladda dhaawac Cole Palmer wuxuuna kaftan ku yiri aan jeclaan lahaa inuu toddobaadkan dib u soo laabto. waxaan ku kulannay qolka cunada subaxdii waxaan u sheegay toddobaadkan gudihiisa inuu soo noqon karo ama uu soo laabto. isaguna uu qoslay hadda qorshaha Cole waa sidaasi inaan sugno ayaa rajadu tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu soo laabto. wuxuu yiri sida ugu dhaqsiyaha badan inuu soo laaban doonaa waa sida uu sheegay ninka lagu magacaabo Cole Palmer. kulamo xiiso badan maanta la ciyaari doona horyaalada kala duwan saaxiibayaal. kulamadaasi iyo waqtiyada ay soo dhici doonaan ayaan fiirin doonaa. Premier League maqribka ama 6 maqribnimo Burnley gurigeeda ku soo dhaweyn doonta Arsenal halka kooxaha kale Palace iyo Brentford, Fulham iyo Wolves. kulanka adag indhaha lagu hayn doono kulanka labada ee qadar 30 daqiiqo Tottenham ee soo dhaweynaysa Chelsea. maqribkii yaan la iloobin Manchester United ayaa booqan doonta Nottingham Forest. Manchester 3 kulan xiriir adkaatay ayaa rajeynaysa markale kulankii afraad in adkaato. Liverpool Aston Villa 5 saac ayaa la daawan doonaa saacadu markay tahay 12. Real Valencia isla xilligaas 5 saac ay la daawan doonaa horyaalka Spain. Jarmalkana Bayern Munich ayaa wajahaysa Bayer Leverkusen. kulamada ugu xiisaha badan Talyaaniga Napoli Como ayaa balansan. Cremonese waxay sugi doontaa kooxda Juventus. sheekooyinkan ayaa ugu weynaa ciyaaraha saaxiibayaal. Maasanidiin.